assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena miisaamo oo aan inta badan kaga warrano dhacdooyinka aadka u layaabka badan ee aan caqliga geli karin ee haddana sida xaqiiqada ah uga dhaca dunida. daawade bal cabir oo qiyaas in aad wakhtiga dib ugu noqoto oo aad tagto 1000 sano ka hor oo aad la kulanto dadkii wakhtigaas noolaa oo aad uga waranto in ay kuu suurtagal tahay in aad ugu kala safarto laba magaalo oo aad u kala fog wakhti yar oo kooban oo saacada ah. maxay kula tahay in ay jawaabtoodu noqon lahayd? dabcan waa ay kugu qosli lahaayeen oo waxay kugu tuhmi lahaayeen waali, sababta oo ah dadkii wakhtigaas noolaa in lagu kala safro saacado yar gudahood laba magaalo oo aad u kala fog waxay ula mid ahayd sidii qof haysta awood qaydal caadi ah iyo waxaan caqliga geli karin. balse hadda oo ay teknolojiyadu aad u horumartay oo ay soo baxeen gaadiidka casriga ah ee safarku, waa wax sahlan oo aan dhammaanteen wada ognahay. balse haddaba daawada ka waran haddii aan hadda kuu sheego suurtagalnimada ah in aad ku safri karto wakhtiga. in aad wakhtiga dib ugu noqon karto oo aad tegi karto sannado hore oo lasoo dhaafay, ama aad mustaqbalka hore ugu safri karto oo aad tegi karto sannado soo socda oo aynaan gaarin. ma i rumaysan lahayd? adigoon jawaabta meel fog ka dooninba waa maya. dabcan internetka iyo youtube-kaba waxaa ka buuxa dad fara badan oo sheeganaya in ay ka soo safreen mustaqbalka oo ay ka yimaadeen sannado fog oo aynaan gaadhin, kuwaas oo ka warrama dhacdooyin khayral caadi ah. dadkaas oo qaarkood la mariyo mashiinka loo yaqaano lie detector ama beenkashifaha oo ay intooda badanna ku baasaan, balse dhammaantooda aakhirka waxa ay kusoo gebagaboobaan in cidna aanay rumaysanin oo waxa ay waayaan cadaymo la taaban karo oo ay dadku ku qanci karaan. balse haddaba daawade dhacdadan aan idiin wado oo dhacday sanadkii 2006 ayaa waxa ay tahay mid kuwaas oo dhan ka duwan, sababtoo oo ah waxa ay wadataa cadaymo cadcad oo lagu qanci karo oo ay ku lifaaqan yihiin sawiro. balse inta aynaan gudagelin sheekadeenna, waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto channelka oo aad subscribe taabato si aad uga socoto fiidiyoyo kale oo xiiso leh. dhacdadani waxa ay dhacday sanadkii 2006 gaar ahaan maalin Arbaco ah oo ay bisha Abriil tahay 23, kadib markii uu si kadis ah uga soo muuqday wadooyinka caasimadda Ukraine ee Kiev wiil lagu magacaabo Sergey oo markaas u muuqday in uu ku jiro da'diisii 20-yada, kaas oo ay wejigiisa ka muuqdaan xoogaa warwar iyo walaac ah. waxa uu xidhnaa dhar duug ah, waxa kale oo uu sitay kamarad qadiimi ah oo laga baxay. waxa uu kolba dhan u qaadayay wadooyinka isaga oo dadka u eegaya si yaaban, mararka qaarna inta uu istaago ayuu dadka weydiinayay waddo aan jirin oo aan dadka u muuqan. markii hore dadku waxay u malaynayeen wiilka dhalinyarada ah ina uu wadadiisii ka lumay ama uu yahay mid lunsan ama uu yahay dalxiise markiisii u horreysay dalka yimi. sidaa awgeedna marka uu waddada weydiiyo waxay ugu jawaabayeen in aanay jirin waddo magacaas lahayn. laakiin waxaa dadka qaar ka yaabiyey ayaa ahaa in Sergey uu ku adkaysanayay in ay waddadani jirto, isagoo oo tilmaamayay halka ay tagto iyo waddooyinka ay ku dhacdo iyo meelaha ay u kala baxdo. halkaa marka ay arrintu marayso, waxaa soo dhex galay booliskii oo iyaga laftigooda u malaynayay inuu yahay dalxiise habow ah. su-aashii ugu horreysay ee ay weydiiyeen Sergey waxa ay ahayd keen aqoonsigaaga si aan u ogaano waddanka aad ka timid. balse waxaa dhacay wax lama filaan ah kadib markii ay boolisku arkeen waraaqihiisa, waayo kaarkiisa aqoonsigu waaba mid ka diiwaan gashan midoogii Sofiyeeti ee burburay sanadkii 1989. waxaase yaabkii noqotay aqoonsigiisa waxaa ku sawiran isaga laftigiisa, waxaana ku qoran taariikhda dhalashadiisa, taas oo ahayd taariikh aad u fog oo ku taariikhaysnayd in uu dhashay 1932. sidaa awgeed haddiiba ayn ka soo qaadno in ay run tahayna, waa in hadda da'diisu noqotaa 74 sanno jir. laakiin wiilka booliska hortaagani waa wiil da'diisu ay tahay 20 oo dhalinyar ah. haddaba siday sidani macquul u tahay ama suurtagal ku noqotay? boolisku waa ay ka shakiyeen, waxayna u maleeyeen inuu waalan yahay. sidaa awgeed waxa ay go'aansadeen inay u geeyaan dhakhtar dhanka dhimirka ah si xaaladiisa loo eego. markii dhakhtarka loo geeyey, waxaa la weydiiyey taariikhda hadda lagu jiro inta ay marayso. jawaabtii Sergey waxa ay noqotay in uu u malaynayo in ay tahay 23 Abriil 1958.
markaa taariikhda maalinta iyo bishu waa sax, laakiin kala duwanaanshuhu waa dhanka sanadka. sidaa darteed dhakhtarkii ayaa u saxay oo ku yidhi Sergey, maanta waa 23 Abriil 2006. laakiin Sergey weli waxa uu ku adkaysanayay in uu sanadku marayo 1958. waana farqi aad u weyn inta u dhaxaysa, oo waxa aynu ka hadlayno run ahaantii maaha sanad iyo 2 toona, ee waa farqi ah 48 sano. dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay, maaha Sergey taariikhdu intaa, ee waxa aan ku jirnaa 2006. balse Sergey ayaa ugu celiyey, waan kaa hubaa, oo maanta oo u dambeysay ayaan ka akhriyayay joornaalka subaxii soo baxay, waana 23 Abriil 1958. su-aashii labaad ee uu dhakhtarku weydiiyey ayaa ahayd, waa maxay shaygii kuugu dambeeyey ee aad xasuusato, iyo maxay tahay sidan aad u warwarsan tahay una kacsan tahay? Sergey waxa uu yidhi, wixii ugu dambeeyey ee aan xasuusto waa aniga iyo saaxiibaday Valentina oo dhex soconna magaalada. waxaan sitay kaamarad, waxaanan sawirro xusuus ah ka qaadayay magaalada iyo saaxiibaday. waxaan si kadiisa u arkay wax madow oo la yaab leh oo aad u weyn, oo joog sare oo dheer ku duulaya samada. dhakhtarku waxa uu weydiiyey, waxaa duulaya ee uu arkay inuu ahaa nooc ka mida noocyada shimbiraha. balse Sergey ayaa ugu jawaabay, uma malaynayo in uu shimbir ahaa, laakiin haddii uu shimbir ahaaba waa markii u horreysay ee aan arko shimbir xajmiga noocaas ee argagaxa ah leh. waxa uu yidhi, waxaan is-idhi ka qaad sawir, balse isla markii aan ka qaadayba waan miyir doorsoomay. kadib waxaan is arkay aniga oo dhex jooga dad aanan weligii arkin, waxaana la yaab igu noqotay inaanay cidina i rumaysanayn. marka aan weydiiyo dariiqa si ay ii siiyaan tilmaan wacan, waxayba noqdeen qaar aan garanaynin waddada. waxaana iigu yaab badnayd markii aan waayey saaxiibaday oo agtayda joogtay ka hor inta aanan miyir doorsoomin. balse goortii aan soo baraarugay waan ka waayey saaxiibaday agtayda iyo xitaa shaygii madoobaa ee samada duulayeyba. sidaa awgeed ayaan la wareersanahay lana kacsanahay, oo waxaan dareemayaa in aan caalam kala imid. kadib markii ay dhakhtarka wada sheekaysteen, waxa uu ka dalbaday Sergey inuu kaamirada u dhiibo balse uu u eego kaamiradiisu sawiradii ay qaaday. balse arrinta la yaabka leh ayaa ah, kaamirada uu sitaa Sergey waa mid aad u gabowday oo adeegsigeeda laga baxay, waxaana adkaatay sidii loo soo saari lahaa sawirada. balse markii lasoo kiraystay ee lala kaashaday xeeldheere ku takhasusay aashitada loo adeegsado ama lagu sifeeyo soo saarista sawirada, kadibna isku dayo fara badan oo uu sameeyey khabiirkani, waxa uu awooday soo saarista sawiradii. waxayna sawiradii noqdeen sawiro isla magaalada Kiev ah, balse aan hadda ahayn, ee ah sanadihii kontameeyada. waxa kale oo sawirada ka muuqda Sergey oo ah isla qaabkan uu hadda yahay, oo gashan isla dharkan uu hadda xiran yahay, da'diisuna ay tahay isla da'da uu hadda ku jiro. waxa kale oo ka muuqda sawirada saaxiibadii iyo weliba shaygii madoobaa ee samada duulayay. khabiirkii sawirada sifaynayay ayaa aad ula yaabay, waayo sida muuqata sawiradani waa qaar duug ah oo gaboobay. waxa uu yidhi khabiirkii, sida la yaqaano sawirada noocan oo kale ahi ma gaari karaan ama ma joogi karaan in ka badan 20 sano, oo ma kaydinayo filimka kaamirada ku jira in ka badan 20 sano. hataa haddii Sergey uu awow kaamirada ka soo qaadan lahaa, sawirada noocan ahi may soo gaareen xilligan. dhakhtarku waxa uu weydiiyey khabiirkii, bal in uu qiyaaso sawiradan xilligan la qaaday. waxa uu ugu jawaabay, waxa la qaaday muddo aan fogeyn oo qiyaastii noqonaysa maanta oo kale. wuxuuna ku balaarujiyey kaamirada noocan oo kale ahi in la joojiyey muddo hore, shirkadii soo saari jirtayna albaabada loo laabay 70-yadii. saynis yahano fara badan ayaa xaaladda Sergey wax iska weydiiyey oo darsay kiiskan, laakiin umaanay helin fasiraad iyo sharaxaad toona. waxayna go'aansadeen inay nafahooda u turaan oo kiiskan iska xidhaan una diraan Sergey goobaha dhimirka. waxayna ku sifeeyeen xaaladda Sergey mid waali ah. waxaa lagu xidhay Sergey qol aad loo adkeeyey ammaankiisa, waxaase dhacday in la waayey mar keliya. arrinta cajiibka ah ayaa noqotay in qolku uu lahaa hal albaab, albaabkaasna waxaa taxnaa ilaaladii oo dhan. sidoo kale waxaa ku xidhnaa kaamiradaha waxduuba. haddaba su-aashu waxa ay tahay, sidee ayuu ku baxay Sergey albaabka iyadoo aan cidna arkaynin, ilaaladuna aanay arkaynin, kamaraduhuna aanay waxba duubin? haddaba waa yaabe, ma uumiga hawada oo kale ayuu noqday? haddaba daawade, dhacdadani waxa ay dhalisay muran aad u fara badan, balse su-aashu waxay tahay, run ahaantii Sergey ma waxa uu ahaa mid ka yimi 7 hore?
markii dambe boolisku waxay heleen saaxiibadii Valentina oo ah mid gabowday balse ku nool isla magaalada Kiev. markii la weydiiyey Sergey nin la yiraahdo in ay taqaano waa ay oyday waxayna tiri waxaan lahaa saaxiib lagu magacaabo Sergey maalin aniga oo la socda wadada si aan iskaga qaadno sawirro xusuus ah laakiinse waxaan arkay bay tiri shay aad u weyn oo samada duulaya kadibna waan miyir doosoomay markii aan caadi ku soo noqdayna waxaan waayay Sergey iyo shaygii weynaa ee samada duulayayba. waxa ay tiri waxaan go'aansaday inaan raadiyo waxaanan gaarsiiyey maqnaanshihiisa booliska meel kasta waa ay ka baareen waana la waayey iyadoo xitaa aan la helin wax raada. sidoo kale waxa ay u sheegtay in ay weli hayso sawiradii Sergey markii laga codsaday in ay tustana waxa ay noqdeen sawiradiisii isla hadda ninkii la arkayay. haddaba booliskii waxaa ka dhammaaday shakigii waxayna go'aansadeen inay ka soo baaraan goobaha lagu diiwaangeliyo dadka la waayey iyaga oo sawiradii qaaday islamarkaana ka soo helay goob ka mida rugaha booliska isaga oo ku diiwaangashay wiil dhalinyaro ah oo la waayey sanadkii 1958. arrintanina waxa ay noqotay arrin adduunka oo dhan ka yaabisay kana wareerisay. haddaba daawada iyadoo dadku ay ku kala aragti duwanaayeen dhacdadan iyo fasiraadeeda ayaa dadka waxaa ka mida qaar ku fasiray oo yidhi qofkani ma ahayn Sergey ee waxa uu ahaa jin isku soo eegaysiiyey qaabkiisii oo kale oo damcay inuu ibni aadamka la kaftamo xoogaa kaftan fudud ah. sidoo kale aragti dad kale ayaa odhanaysay shayga weyn ee samada duulayay ee soo muuqday ayaa ah ka Sergey ku soo celiyey 2006 oo waxa uu ahaa aaladda waqtiga waayo markii uu Sergey sawiray waa uu ka qarsoomay islamarkaana waa uu miyir doosoomay kadibna waxa uu soo kacay isaga oo jooga 48 sano kadib. haddaba daawada marka laga hadlayo safarka ku socdaalidda xilli waqtiyeedka waxaa jira qaacido la yidhaahdo dilation time oo macnaheedu yahay markaad ku safarto hawada sare xawaaraha iftiinku uu leeyahay oo kale waxa uu waqtigu noqonayaa mid gaabiya oo waxa ay u dhigantaa halka maalin ee aad hawada sare joogtaa sannado marka aad dhulka joogtid balse cidina ma sharaxi karto wixii ku dhacay Sergey oo mar labaad la waayey kaas oo ka tegay su'aalo iyo caddaymo caddaynaya inay xaqiiq tahay sheekadani kuwaas oo ka soo horjeeda aragtiya xaqiiqada ku salaysan. balse su'aashu waxa ay tahay mustaqbalku miyuu tagaa mase ma soo noqdaa waqtigii tegay? Allah subxaanahu wa ta'aala